السلام عليكم أخيارتا كحران channel كان sheekadii inoo socotay waxay ku bilaabanaysaa ma dareemi karno nimcada oo Allah ina siiyay wuxuu ahaa nin daadiisu ay tahay dhaxdhaxaad wuxuu ahaa nin aad ugu mashquulsan dunidan taasoo sababtay inay ku yaraarto xasuustii Allah maalin maalmaha kamid ayaa xanuun ku soo booday neefta ayaa ku xirmatay durbadii isbitaal ayaa loola cararay dhakhaatiirtii waxay wargeliyeen ama ay u sheegeen in uu galayo xaalad qalliin waayo caafimaadkiisa ayaa ku jira ninkii waa uu aqbalay inuu galo qalliinkii saacado kadib ninkii waxay dhakhaatiirtu u sheegeen in xaaladiisu ay fiican tahay oo caafimaad qabo waxayna u keeneen warqad ay ku qoran tahay lacagta laga doonayo ee lagu qalay ama biilkii isbitaalka ninkii warqadii ayuu fiiriyey oo uu akhriyay kadibna waxyar kadib markuu aamusnaaday oohin ayuu jabsaday dhakhaatiirtii ayaa waxay ku yidhaahdeen war maxaa kaa oohinayo waxaanu kuu sheegnay caafimaadkaaga inuu soo laabtay oo aad fiican tahay hadda ninkii ayaa wuxuu yidhi waxaan jiraa ama aan ku dhowahay 60 sano intaasna waa neefsan jiray oo weligay lagama qaadin wax qarash ah neeftuna ima aysan dhibin hal second xitaa idinkuna saacad gudaheed ayaad waxaad iga qaadanaysaan lacag aad u badan xigmada ayaa waxay tahay sidan nimcada aad haysatay waxaad si dhab ah u dareemi kartaa marka aad weydid daawade adduunkan markaad imanaysay waxaad timid adigoo qaawan haddana waxaad ka tegaysaa adigoo qaawan adduunkan markaad imanaysay waa lagu qubeeyay haddana waa lagu qubeyn doonaa adigoon aqoonin cidda kuu qubeyn doonta adduunkan waxaa timid adigoo gacantaadu maran tahay aadan haysanin wax hantiya ama lacag toona haddana waxaad ka tegaysaa adigoo sidiiya aadan waxba wadanin gacantaaduna maran tahay adduunkan waxaa timid adigoo daciif ah haddana waxaad ka tegaysaa adigoo daciif ah marba haddaad sidaas tahay maxaa sababay inaad dembi unaad ka faa'iido haddaba iga jawaab su-aashan waxaad iga jawaabtaa wax aad adduunkan ugu timid oo aad qaadan doontid waa maxay